السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Moga Forex waa maalin kale iyo trade kale insha Allah suuqan ka fiirin doona haduu Ilaahay idmo maanta waxaa jiro press conference waxaa ka jirto lacagta qaad ayaa waxaa ka jirto lacagta press conference kulley wax badan ma isbedelin laakiin trade-ka aan rabay halkaas inaan ka qaato waxaa trade halkaas inaan ka qaato khayr way dhaafay laakiin waxaan isku dayaa inuu bullback noo sameeyo halkaas rabay inaan ka qaato halkaas marka ka qaato waxay noqon lahayd stop loss-kayga 1 hour kana ku manage gareeyo TB-ha meeshaan ugu socdaa iyo meel ka hooseyso zone-kan dhan 1 to 2 haddaan helo okay waayo 1 to 2 okay 1 to 2 maadaama halkaas ay tahay markaan fiirino hadda kan 15 minute-ka hadda oo cusub oo furmay haddii aan ka qaato tusaalahaan halka haddaan ka qaato maxaa dhacayo 1 hour markaan geeyo 15 minute ka hore weli 1 hour waxaa waaye 30 minute kan kalena uu dheer yahay kan kale ilaa korkaas waaye uu dheer yahay kaas زياد ديري هاي مش shaqeynayso kulley 30 minute markaan geeyo kulley waxay noqon kartaa 30 minute kan korkiisa barka waxaan sugaynaa wax yar waxaan isku dayi doonaa inaan sugo inuu bullback noo sameeyo oo wax yar bullback soo qaato zone-kan hadduu imaado kadib trade-kiina soo qaato si stop loss-ki uu noqdo wax ka yar 30 eridan meeshaan bulugta ay taaran tahay 24 bip waxay kornaa oo celiyo meelahaas marka hadii halkaan ka qaato waxay noqon kartaa 36 bip shalayna 32 bip aan khasaaray maantana 36 bip haddii hadaan khasaaro waxa waaye waa adkaan doontaa laakiin trade-ki inuu dhaafaan ka baqa inuu dhaafo ay badan tahay okay hadduu dhaafo caafi kulli waa isdhaafi doonaa hadduu Ilaahay idmo wax yar markaan dib u fiiriyo trade-ki shalay wixii ka dhacay markaan dib u fiirino hadda 15 minute kan joogaa trade-ki shalay stop loss naga saaray kan ahaa trade shalay stop loss naga saaray kan ahaa 15 minute markaan ka galay wax yar hoos u celiyay 15 minute kalena wuxuu ku xirmay meesha suuqa ku furmay hoosteeda ku xirmay kii kale markuu furmay isla markii naga saaray xilda markay ahaydna oo kanalka niiska waay oo soo baxay si xawli ku soo daatay erideen u imaaday waliba soo gaarin targetkay haddana meesha ku laabtay maantana sidii may samayn doontaa kulley ma aqaan laakiin waxaan isku dayi doonaa trade-kii horta entry-giisa way dhaafay wuxuu igu dhaafay halkaas entry halkaas uu ahaa entry wuxuu ahaa halkaas inaan ka galo calaamadaas meesha ay taaran tahay calaamada zone-kaas ahayd entry-gayga saacada hadda xoogaha uu ii wadi lahaa hadda waxaa ujeedaa inuu trade-ka sii dhaqaaq rabo marka qaar way dhici kartaa adoo trade kor fadhiya inuu ku dhaafo saa camal way dhici kartaa hadda almost trade-ka wuxuu socdaa 26 bip kan dhakan lahaa geli lahaa hataa markii 26 bip oo nadiif ah heli lahaa marka laakiin waa baqay sababtoo ah waxaan u cabsaday 1 hour markaan fiiriyo 1 hour ka hore stop loss meeshaan dhiganahay ay ugu dheeraatay stop loss hadaan halkaas hadaan geli lahaa stop loss-kii ay ugu dheer wuxuu noqonaa 76 bip 76 bip stop loss uu dheer yahay haddana almost wuxuu soo socdaa wax badan u dhaqaaqay hadda maasha Allah trade-kii si fiican u dhaqaaqay waxaan ujeedaa inuu dhaqaaqay ku dhawaad inuu dhaqaaqay 43 bip wow maalin kale oo nasiib daran aan dhihi karaa kulley maanta waxay noqotay maalin kale oo trade-kii anoo dul fadhiyo inuu dhaafo oo duubistii ku jiro oo isha ku hayo wax yar howl kalaan gacanta ku hay laakiin trade-kina ishaan ku hayay trade halkaas ugu dhaafay calaamadaas ka qaado way dhacdaa maalin trade isku diyaarisid oo trade-kan horta kanalkan oo 15 minute kan wax oo dhibkan wuxuu ahaa 15 minute kan wuxuu u baxay si xawli maadaama xilliga newsii soo baxayna iska hayeen 15 minute kale wuxuu soo gaaray all the way London Open kan kalena Asian low u socdaa hadda zone-kan u socdaa zone-kaas meel ka hooseeya u socdaa zone-kaas u socdaa marka qorshaha wuxuu ahaa halkaas inaan galo trade-kii maanta oo zone-kaas u baxo weli trade ma qaadanin haddii ay dhacdo intaan duubista aan ku jiro haddii ay dhacdo in trade-kii dib week-gan hadda week hore u haystaa week hoosna uu leeyahay week hore soo qaato oo zone-kan imaado zone-ka entry-ga aan ka rabay uu imaado waa macquul markaas inaan trade-kii mar kale aan isku dayo inaan raadiyo laakiin haddii saan kusii socdo all the way down meesha imaado
all the way meeshaas hadduu imaado waa adkaan doontaa inaad trade qaato halkaas trade ka halkuu joogo inuu soo baxo zoonka inuu imaado markaas waxaa laga yaabaa kan kale haddii mar uu furmaayo haddana inuu ku furmo zoonkan oo isla markii uu imaado targetka aan rabayba isla markii la gaaro taas macquul waay waxaa kaloo macquul ah meesha joogo inuu week ka qaato oo dib u laabto zoonkaas uu zoonkii aan rabay inuu imaado kadib aan kasoo target gareeyo halkaasna aan kasoo garaa trade halkaas aan kasoo raaco all the way down ana biaskii horta kale waxaa waaye sell trade-ka waxaan ka rabaa sell inaan u qaataan rabaa wax yarna wuu dhaafay haddana ma rabi inaan bursado sababtoo haddaa bursado waxay ugu badanayso stop losska ay ugu dheeraanaya sababtoo ah hadda markaa fiiriyo kan dharka hadda 15 minute hadda oo furmay oo hadda furan kaliya 5 minute 4 minute furan wuxuu socdaa ku dhawaad 30 bip waa 30 bip waxaan raadinaya 30 bip 25 bip 40 bip waxaan raadinaya waay almost 30 bip uu dhaqaaqay caafi kulli marka qaar waa way dhacdaa in oo trade-ka adoo waardiinaya inuu ka tago okay marka ma rabno inaan sii bursano kulli waxaan isku dayi doonaa inaan wax yar aan sugo markaa fiiriyo newsii maanta soo baxay waxay u badnaayeen corp CPI oo kii bilihii iyo CPI caadiga oo bilihi soo baxay iyo kii sanadlihii waxaa malaysaa lamaantooda inay kusoo baxeen inta la filaya in ka yar 0.3 waxaa la filaya corp CPI oo bilihii waxaa laga sugayay bishii hore wuxuu ahaa 0.4 bisha waxaa laga rabay 0.3 wuxuu kusoo baxay 0.2 wixii laga filaya wax ka yar kusoo baxay lacagta USD-da waa markaas waxa waaye uma roona markaa fiirino hadda lacagta tusaale ahaan USD JPY hadda markaa fiirino halkan USD JPY maanta way dhaqaaq fiican inay samaysay waa kana xilliga newska soo baxay xilligaas waay waa kana xilliga newska soo baxay halkaas oo ah newska halkaas soo baxay kadib wuxuu dhaqaaqay all the way ilaa halaas uu dhaqaaqay waa in ka badan wuxuu dhaqaaqay in ka badan 60 bip kadib hadana kor loo celiyay hadana wuu soo socdaa marka GJ-dina inay dhaafto ma rabno waa GJ waa in dhaafto maanta saasay ku baxda GJ saasay ku baxda kulli caafi ilaa zoonkan ay gaari doontaa kulli maalin kale oo not trade ay noqon doontaa maanta maadaama ay iska tahay maalintii labaad oo isbuuca maalintii labaad aan rabay inaan trade gareeyo isbuucan shalay waa trade-ka oo SL nooga dhacay isniintiina trade aan qaatay 0.1% aan ku xirtay shalayna 1% aan khasaaray maantana trade-ki kulley waxaa malaysaa inuu saas uu ku bixi rabo marka muhiimadda ay leedahay suuqaan inaad sugtid horta taas waay hadduu ku dhaafana muhiimadda ay leedahay inaad iska dhaaftidna waxa waaye taas meesheeda waay haddaa dhahdid kulley halkaasaan gala oo aad soo qaadaystid short position meesha uu maraya ka geshid qorshahaada ahaa oo stop losskii 1 hour-ka aan ku manage garan lahayd kii haddaa aan diiday oo ahaa 1 hour hadda socdo maahan 1 hour-ka hore wuxuu noqonayaa 100 bip marka 100 bip macquul maahan inaad trade aan ku risk gareeyo 9 bipna ma qaadan kara sababtoo ah 1 hour hadda socdo waay badanaa markaan trade qaato waxaan ku manage gareeyaa 1 hour-kii hore kii hadda socdo maahan midka ka horreeyay aan ku manage gareeyaa marka maanta waxay noqon kartaa aan dhihi karaa waa no trade maalin kale oo qurux badan waay kulle insha allah maantan saacadda waxa waaye way sii socotaa marka waxaan rabaa inaan meeshaan ku joojiyo kulle waa fiirin doonaa haddii aan u arko tusaale ahaan haddii aan u arko kandarka hadda socdo hadduu all the way up uu kusoo laabto halkaas kusoo laabto kandar kale uu furmo oo asina zoonkan uu soo gaaro still ani baiskayga ahaa inaan seel gareeyo wili janska waa halkaas waa ku seel garan karaa anoo target gareenay zoonka anoo target gareenay saas waa samayn karaa marka taasna waxa waaye waxay ugu jirtaa plan B ay ugu jirtaa taas ish inaan ku hayo waayo kulley tan kale oo kanalada hadda u jeedid markii oo newska kadib xilliga newska waxay ahayd 12:30 newskan oo ahaa kanalka kadib kor u aaday zoonkaas oo ahayd zone resistance ayuu aaday kadib waxaa malaysaa in oo si xooli lagu soo laabtay dhowr 15 minute oo waxaan u jeedaa oo casaan marka intrigayga halkaas u ahaa exact meeshaan rabay inaan ka galo halkaas u ahaa intrigayga halkaas u ahaa waxay ka mashquulay waxaan arkay all the way soo jooga meeshii aan rabay haddana dib u laabtay kii kalena waxa waaye 15 minute hadda bilaawadana waa markaan duulista aan bilaabay ahayd intaan waxda duubaay waa horuk dhaqaaqay marka dhib ma lahan maalinta waxay noqon kartaa maalin aan trade garaynin oo
in badan aan isku hayay trade-kan dhaafay marka insha Allah kulay trade-kii waxaan rabaa inaan kusoo xiro halkaas inaan kusoo xiro maanta asxaabta dhammaan ku xiran boga Moga Forex waxaan leeyahay soo dhawaada kulay maalin kasta qorshe wuxuu ahaa sanadkan xilli Ramadaan waa la soo galay qorshe wuxuu ahaa maalin kasta trade aan qaatay inaan soo gudbiyo qaabka u qaato iyo waxyaalahaas kulay hoshii way socotaa kulay waxaan maleynaa hadda isbuucan maalinta saddexaad ay noqon kartaa mise maalinta afraad oo aan soo gelinahay trade aan qaato inta bisha dhamaan kulay inta trade aan qaatana waxaan talahaan maraan isla fiirin doonaa trade recap markaa sameynayna duulaahin maadaama maanta in waa markay furmaysay newsies ka badnaayeen 12 furmaysay news kana jiray kana news kana jiray ka news soo baxay intaas dhan waan trade qaatay mareen waan sugay xilli news kadib inaan trade qaato qorshii kaas ahaa kiina hadda waxaan maleysaa inuu saas ku baxay maadaama saas ku baxay kulli waxay noqon kartaa waxay noqonaysaa inaan maalin kale iska sugno marka dhamaantiin waxaan leeyahay kusoo dhawaada waxay noo bilaa maalinta berita duulay ahidmo hadii trade fiican aan helno waan soo gelin doonaa laakiin maanta waxaan ku qoranaynaa no trade day haduu ilaahay idmo no trade day maanta waxa waaye wax trade ma qaadanin halkaasaan sawirkaygana waan samaysan doonaa si aan u haysto tusaale ahaan maalinta kalena aan u haysto tradekins marka insha Allah waxay noo balnahay maalinta kale abdullaahi assalamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatuh